Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hogaamiyaha la waayay isagoo 6 jir ah siduu u ekaan lahaa maanta hadduu soo noqdo. Waxaana sawirkan laga qaaday isagoo 6 jir ah. Haatan muddo 25 sano ayaa laga joogaa markii isaga iyo qoyskiisu ay afduubteen dalka Shiinuhu. Waxa uu ahaan lahaa 30 jir. Markii la afduubanayay waxay ahayd 3 maalmood kadib xilligii loo aqoonsaday in Banjalama uu yahay dib u soo noolaaday ee diinta Buddhistaas oo ay rumaysnaayeen dadka reer Tibet. Ma jirto cid xaqiijin karta halka uu Jania cirib dhigay tan iyo markii la afduubtay dadka reer Tibet ee ku sugan dhulalkaas ka baxsan Shiinaha waxay ku baaqayaan in la soo daayo saraakiisha Shiinaha oo kaliya ayaa ka warhaya halka uu ku sugan yahay wiilkan. Dowladda Shiinaha muddo rubuc qarni kama aysan hadlin xaaladiisa. Lagama filayo wax rajo ah oo ku saabsan inay sheegaan wararka la xiriira halka uu ku sugan yahay, waxayna dareemayaan murugo. Waxaa sidaas yiri Sonam Trisliin Frasi oo ka tirsan golaha dibad jooga ee dowladda Tibet kaasoo ku sugan London. Kuwa doonaya in la soo daayo Banjalama waa arrin la fahmi karo. Waxa uu muujinayaa in kiiskiisa ay awood u leeyihiin hogaamiyaasha Shiinaha kuwaasoo horseedi kara in qof la waayo. Waa haddii qofkaasi caqabad ku noqdo nolosha ama dalkooda. Sida uu ekaan lahaa maanta Banjalama sida ka muuqata sawirka la nashqadeeyay. Kooxda Qaramada Midoobay u qaabilsan dadka la qafaashay ayaa isku dayay inay wax ka ogaadaan xaaladda Gadhin Chekiniama oo la waayay sanadkii 1995 balse macluumaadku ma aynay ogaan arrintaasi. Toddobaadyo ka hor inta aanan loo dabaaldegin 25 sano guurada ka soo wareega marka la afduubtay, waxay kooxda Qaramada Midoobay ay u sheegeen wax ka baxda wararka inay wadaagaan warar ku saabsan ay ku soo qaadeen dadaaladoodaasi. Dowladda Shiinaha marar badan ay jawaab ka bixisay kiiska balse faahfaahin badan kama aysan bixin. Sanadkii 2013 kooxdu waxay cusatay dowladda Shiinaha inay ogolaato inay booqdaan dalkaasi markii ay soo saareen warbixintoodii sanadlaha 6 sano kadib oo ay codsi u direen. Shiinaha waxay sheegeen in weli ay sugayaan natiijada. Kooxdu waxay sheegeen inay ku rajo weyn yihiin in dhowaan ay jawaab ka heli doonaan dowladda. Inkastoo xukuumadda Beijing aysan ka hadlayn arrintaasi, waxaa jira sababaha Shiinaha uu ku doonayo in wiilka 6 jirka la waayo. Dadka reer Tibet ee aaminsan diinta Buddhist waxaa hogaamiyaha Dalai Lama uu yahay ninkaasi. Wuxuu ka cararay Tibet sanadkii 1959. Wuxuu ahaa astaanta awoodeed ee reer Tibet kuwaasoo ka xanaaqay awoodda xukuumadda Beijing ay ku maamulayso dhulka dhaca buuraha Himalaya. Waxaa la soo hadal qaaday arrinta Shiinaha uusan doonayn in wiilka yar Banjalama uu noqdo hogaamiyaha islamarkaana uu laf dhuun gasho ku noqdo. Kadib markii la waayay Gadhin Chekiniama la waayay, Shiinaha wuxuu ku dhawaaqay qofkii bedeli lahaa hogaamiyaha diinta Buddhist. Dad badan waxay rumaysan yihiin in Shiinaha soo magacaabi doonaan hogaamiyaha markuu dhinto hogaamiyaha haatan ee diinta Buddhist imika. Haddaba sheekooyinka Shiinaha isbedelaya. Haddaba durbadii markii la waayay Banjalama, dowladda Shiinaha waxay kooxda Qaramada Midoobay u sheegtay inuu jiro kiiskii ku saabsan afduubkii qoyska iyo wiil rogaal celiyay. Shiinaha wuxuu sheegay in eedeymaha ay ka dambeeyaan kooxda Dalai Lama. Sanadkii 1996 sheekada ay isbedeshay. Shiinaha wuxuu ku sheegay in koox qaswade ay isku dayeen inay wiilka u dhoofsadaan dibadda.
qoyskiisa oo codsaday in la difaaco. Macbad ku yaala deegaanka Sheekhdis ee Taybit, waxaana hooygaasi Banjel Laamis ahaa. Xukuumadda Beijing waxay sheegtay in wiilka iyo qoyskiisa ay xaaladoodu wanaagsan tahay, balse waxay sheegeen inaysan waxba ku darsanayn cid kasta. Sanadkii 1998, Shiinuhu wuxuu kooxda Qaramada Midoobay u sheegay in hooyada dhashay Banjel Lama ay xabsi ku jirto, inkastoo aysan kala caddayn muddada la xiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan sii faafi kanaalka, hal qofna ha ahaatee.